ninkii doonaya inuu horumarto Soomaaliya dalka Eritrea la yiraahdo waxa dhacday waqtigii ay gobonimada ay qaateen dhammaan waxa la wixii aqoonta ahaa ee dibadaha joogay nin kasta 6 bilood sanad ayuu isqoray dalkiisa ka soo shaqeeyay sacrifice ku sameeyay maanta halku maray way ogna sidaa daraaddeed waxaan ku talin lahaa qof walba mas'uul baa ka saaran in dalkaagii aad ka soo shaqeyso waxaan leeyahay in badan baan kala qayb galnay dadka Soomaalida iyagoo maxaa sameynaya baroodiib iyo cambaarayn shilal foolxul oo la sameeyay oo dadkii lagu laayay sidii geeridii foosha xumeed iyo dilkii foosha xumeed ee shaqo ka dhacay maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan kala qayb galo oo halkan aan imaado aniga afka xusbiga ku hadlaya farxad iyo dimuqraadiyad aanu sameynay oo aan ku faanayno waxaana leenahay yes we can sidaan oo dadka Soomaalida nahay sidaan waa la sameyn karaa iyadoo waxa jirtay ruuxii Jamal Abdulaziz xabadaan qoriga ku rida gacanta kalena ku codeeya waxa ka dhacay muddasho waxa weeyaan iyadoo xabad u dhacayso ayaa doorashada la sameeyay haddaan xusbiga Santa Party-nahay waan ku faraxsanahay waana taageeraynaa waana garab taaganahay anoo ku hadlaya magaca madaxda gobolka Xafladda ee xusbiga Santa Party waana إلهي الصومالي لما يوم عدالة الإسلام الله مسلم إن شاء الله تعالى تصل مهمة إن شاء الله إلى عدالة والعدالة نبض كورس نبض عدالة الإسلام إن شاء الله تعالى إن عن قصة إلهي بسؤالي أنا قلنا سنو نفس الواجيل إن قلب جيل مسكح جيل كل عن سنو سووا شغله لهن ولدن إلهي نبري وحنا بينو يرو magaalooyinka xogaa yallo malay ka tagayo waxaan sameeyay waxaan isku habeeyay insha Allah ta'ala waxaan rabaa inuu yeero qaybta dumarka gabadha Soomaaliyeed ana macallimiinta magaalada Västerås ka bara mac Soomaaliyeed فلس حسب فيديو يوم يريني كلمة اللي كنت لها وكذا بسم الله السلام عليكم. سيد رنتا كل واحد والسلام لكن أنا أخوي بدي أحسن. بلا صوت مقعيات مغلى. ولا ما. عادة وين وبلهي تصوت هذا كهربط به لكن وحنكون فرح سنة هينا المانطقة قف كمية هاي تاجرياش أما ضدك أيد هايو مدحوينها بس. سووا كي تشتغل كمية. سووا حجتي السلام عليكم. كل ما معلومة قوي أصدقائي أمي على الشغلات تبدأ نص على الشغل. هذه سوقة والسلام لله. شفت شيء غالي هو. أنا وصلنا دلوقتي هذا واحد ربنا وياه. سبينتا أما كانت بيشتي مال المجالة. مرة وقتنا والسلام عليها. أنا قدمت حسن موسى علي أيام إن شاء الله تعالى كلمة في الوجه الأسلم. وعن ما دلنا يا ولالين فاستروس نقول مرتقى حفلة قرح البلان له إذا كان يوسف عسمي وعن لنا وما سيء يهدي المدن يو المدن يسمعكم ومتى ما كلابات وحوي حفلتنا مسؤول نمدي واسكت تاجيرو عن تاجير الله مدح ضغرنك اسبد الشيء كوح صيبة iyo koox la sagootinayo marka waxa weeye marka waa soo dhaweynaynaa Dr. Xassan Sheekh Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waa soo dhaweynaynaa raiisul wasaaraha Professor Dawaali waxaan soo dhaweynaynaa ku-xigeenadiisa
waxaan sagootineynaa oon iyadana la inkiri karin madaxweynihii hore shariif sheekh axmed oon markaati ka nahay hawsha badan iyo meesha uu ka keeno Soomaali waa la wada og yahay 20 sano waxaa lagu jiray dowlad ku meel gaara waa la dhisay intaas haddana cid wax qabata oon ahayni madaxweyne sheekh shariif lama hayo wuxuu keenay meel la isku doorto oo berri insha Allah xilka lagu kala wareegayo marka waxaan leenahay madaxweynihii hore sheekh shariif aad iyo aad ayuu mahadsan waxaan leenahay maahina say kaligiis kolay kooxo watay team bay ahaayeen ra'iisul wasaarihii inkastay badnaayeen iyo wasiiradii iyo kooxdiisa oo dhan aad ayaan soo dhaweynaynaa aad ayaan u maartay u sagootineynaa aad ayaan u mahadsan yihiin leenahay madaxweynaha cusub iyo ra'iisul baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo baarlamaanka cusub waa waji cusub iyo haddii ilaahay raabo cusub oo Soomaali u furmay aad iyo aad ayaan soo dhaweynaynaa amoon badan ayaan u qabnaa Soomaali wax badan bay ka sugaysaa marka waxaan leenahay soo dhawaada aasatan Dr. Xassan Sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda shakhsiyan aad ayaan u naqaanaa waxaan ku ogaanay nin karti badan oo dadnimo badan oo hawl badan oo madaala nin dad wax baray jiray oo sanadkiiba ugu yaraan ka soo saari jiray siimad meesha la yiraahdo 1000 arday amba 1500 arday sanad ka soo saari jiray waayo marka waa nin haddii ilaahay yiraahdo wax badan arrimaha bulshada ka yaqaana marka waxaan rajaynaynaa tanna inuu Soomaali salkay dhig weydeen insha Allah inay taariikhdu sheegto salka dhulku dhigo siyaasadda ayaan rajaynaynaa waxaan ka rajaynaynaa oo sugaya haddii ilaahay yiraahdo culays badan dadka haddii ilaahay yiraahdo masalan fadaha ku yaacaya dadka jaalalka ku jira Soomaali dadka qurbaha ku soo cararay waxaasoo dhanba waa ay sugayaan kuwa gudaha jooga waxbarasho aan haysan baahi iyo dhibaato iyo waxbarasho la'aan intaasoo dhan iyo culays badan ayaa sugaya insha Allah waxaan leenahay ilaahay ku fududeeyo ilaahay kula garab galo qofkii ilaahay saacido ayaa haddii ilaahay rabo manaa insha Allah marka insha Allah waqtigu waa gaaban yahay waa mahadsantihiin dadka inta yaroo oo martay inta wax loo sheegi karo ugu haday daaraan ku maqlay maayo marka waa mahadsantihiin dhageysiga aad u mahadsan yahay Xassan ama saddex khidmadaha wanaagsan aad u gudbisay Soomaaliya وسياسي اندبان قبل صورملان حقيقة وزير وحبرشدة قبلك يوم يوم إن شاء الله تعالى أقصدوا إلى صاحب يوم فرحات فيصل نور علي سيد الوباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واني سلامي وحنا وانا مع اليو رير فيستروس جاريد فيستروس oo halkaan lagu casuumtay dadka oo sharafta loo meeshan imaaday saasaan diyaar u ahayn laakiin aniga waxaan ka imaaday magaalada Xassan waana markii ugu horeysay horta aan Västerås oo kale aan meel sano uga hadlo Faisal Calaal aynaha aniga sidii loo sheegay waxaan ka tirsanahay baarlamaanka oo Xassan waxaana maanta aan u imaaday aan ku hadlayaa magaca milyan partiid xisbiga milyan partiid waxaan rabaa xisbiga milyan partiid oo dad badan ay si aad u yaqaaneen oo ay xisbiga kaliya oo wadankan oo Sweden ka jiro oo u dagaalo oo markas u taagan afaaraha oo Soomaalida in oo dadka la isku keeno oo wadanka Sweden maanta isbedel badan ayaan laga arkaa markay tahay dhinaca Soomaalida iyo wadanka Soomaaliya Sheekh Shariif aad u mahadsan yahay adigu soo qabtay oo soo qabtay
haddana waxaan aniga aan marka haddaan nahay oo ka socoto baarlamaanka oo iskastooyna waxaan rabnaa marka inaan hadda aan Soomaalidan u hambalyeeno Xassan Sheekh Maxamuud oo marka hadda gudoomiyaha baarlamaanka oo Soomaaliya madaxweynaha waddankan waxaa la keenaa 6 sano jira hadda marka waxa waaye switchkan ku fiicanahay igaraanada haddii aan ka hadlo waxaan ka rabno horta presidentka Soomaaliya waxaan ka rabno waxa waaye in uu waddanka dhiso waxaan ka rabnaa waxa waaye horta waddan wuxuu ku shaqeeyaa waxbarashada oo dhinaca oo ilmaha oo laga dhisaayo waxbarashada waxa waaye waa rajada oo waddan uu leeyahay in uu lugiis ku istaago badanaa dadka Swedishka oo aan ku jiro maalin kasta ku dhex jiro waxaan ka hadlaa waxa waaye dadka Soomaalida waa dadka adduunka ugu firfircoon markay tahay wax abuuris iyo shaqo iyo markay tahay business laakiinse waa dadku ugu liito markay Yurub imaadaan inay guryaha ku fadhiyaan waxba qabsan aniga waxa waaye arrin loo baahan yahay in oo wax laga bedelo halkan waddankan ku noolnahay Sweden ha ahaato Yurub meel kasta ka joogno Asia America in aan markaan dhinaca waxbarashada oo ciyaalka in aan aad u taageerno dadkii kale oo xataa oo waxbarashada oo weli wax ka dhameeyeen inay waxbarashada sii wataan si aan statistiga hadda oo waddanka ka jiro oo Yurub ka jira aan ka bedelno statistiga hadda wuxuu sheegaa 90% haddii boqolkiiba 90 oo dadka Soomaaliya waa dad oo guryaha fadhiyo oo waxba qaban statistic oo haddii loo fiiriyo qof naga mid oo habi ku yahay miya maya marka waxa waaye rajo badan looga baahan yahay presidentka rajo badan looga baahan yahay aniga xataa rajo badan looga baahan yahay inaan isku dayno inaan inta awoodna aan qabano marka haddii aan hadal ku dheeraan waxaan rabnaa marka haddii aan xisbiga midoobay nahay in kastoo hadda aan ka rajeynayno in aan dadka badan oo imaanayo oo hadda waddanyaasha Yurub soo ururdayo inay istaagto sababta ma in la rabin in Soomaali imaadaan laakiin waxa waaye in oo la helo waddan oo barwaaqo iyo nabad leh oo lagu noolaan karo marka anigu ku hadlay marka magaca nin oo la yaqaano oo heedo gobolka oo Xassan haysto Yimyonson oo uu farando marka oo gudoomiye uu marka uu baarlamaanka oo Xassan waxaan leenahay aan u hambalyeeno presidentka cusub waxaan rajaynaynaa in ay Soomaaliya ee meel kasta ay joogaan ay midoobaan Soomaaliya ha noolaato وما سيهاي فيصل أنا شجعنا تطلب بهاي هواي وبرصة أكتب أنه هو ذكاء لو دلا إلى سكول شغل أحمد تريسو مدام وسياسي هاي تعليم تبحثية لأنه صدق برصة كشنايو تطلب بهاي هواي فيصل هو لنا إلى برصة تدخل حرته أبحث دلا إلى هذا علوم صعب إن شاء الله تعالى.